dhegaystayaal marka ay adeegsiga sheeka xiriirooyinka iyo mahmaahda joogto maanseyahanadu ma kala laha umana kala qaybsanee way u siman yihiin kuwa dambe iyo kuwa hore macnaheedu wuxuu yahay maansada soomaaliyeed ee casriga ah inta aad dhex mushaaxayso waxaad kolba ka kor dhacaysaa maanseyahan tixdii uu tiriyaba hal maahmaah iyo ka badaniba ay ka dhex muuqdaan hal-abuurada haddaba aqoonta maanse curinta loo fududeeyey ee markay wax tirinayaan adeegsiga maahmaahdu uu haddiiba maankooda ku soo dhaco waxaa allaha u naxariistee ka mid ah cabdulaahi macallin axmed oo dhoodaan ku magac dheeraa malahayga waa dhif gabay uu leeyahay oo aan maahmaahdu ku googo'nayn taasoo aad mooddo marar badan inay ka tahay dhoolatus uu ku bandhigayo aqoonta dheer ee uu dhaqanka dadkiisa iyo dalkiisa u leeyahay gaar ahaan dhaqanka reer miyiga iyo murtidooda darfaha ballaaran ee waaye aragnimadoodu ay siisay dhowr tusaale oo aan ka soo xulay gabayadiisa tirada iyo tayadaba badan aan u horraysiiyo mahmaahdii ahayd cadowgaaga dhuux sagaaraa loogu soo dhaashadaa sida muuqata waa murti inagu waaninaysa dandarrada markaas ina haysa inaan qarsanno oo aan cadowgeennu foolkeenna ka akhrisan si aanu cadowgaasi inoogu wiirsan waa inuusan jiraac inaga garan oo markii uu inaga hor yimaado aan u muujinno dhereg iyo ladnaan aan wada run ahayn gabay haddaba dhugad la yidhaahdo oo 1960 uu soomaalida ku guubaabinayey kuna hoga tusaalaynayay iyada oo dhaqankeeda ku dheggan in haddana gaarista horumarka casriga ah ay u xusul duubto gabaygaas ayuu dhoodaan mahmaahdaa ku soo qaatay isaga oo weliba ujeeddadeeda shishe ee looga dan lahaa inoo sii kala dhigdhigaya wuxuu yidhi raggiisa aabbayaasheen dhalay baa dhaafay hadal weyne maahmaahyaday noo dhigeen midaan ka soo dheegay intaad sacabaduu dhigan lahayd cadowku dhuuraaya si uu dhooma inaad buuxsatood dharagtay kuu moodo dhafoor xun iyo cadowgaagu yuu dhuubni kaa garanne waxaaba loogu soo dhaashadaa dhuux sagaar ah markaad hadalku geystuu u dhici sii dhadhamisaanna dhudhunkeeda taa lama lahayn dheef ka raadsada macnuhu waa dhiggaa lama baryee ceebka dhowrsada isla xilliyadaas ayuu dhoodaan tiriyey gabay isagana uu soomaalida ku hoga tusaalaynayo tixdaas ayuu gabyaagu wuxuu inoogu muujinayaa farshaxnimada uu maahmaahda maanse ugu rogi karo iyada oo inay dhib ku tahay aan innaba laga dareemayn wuxuu soo qaatay 4 maahmaahood oo kala ah dhagax taabasho iyo tuujini waa isaga too hal nin la toosanin nin la tuur leh waana abuur baa ka horraysay iyo saddexleedii ahayd 3 baa rag ugu liita ma tabcade ma toshe iyo ma tashiishe dabadeedna gebigoodba intuu isxojiyey ayuu ku soo koobay 7 meelis oo ka mid ah gabaygiisii uu tusaale u bixiyey wuxuu yidhi dhagax taabashiyo tuujin iyo inaad tantoomayso 3 midkaad ula tagtaa waa isugu taagee nin wixii la toosani mid buu tuur la leeyahay waanada abuurkaa tirtira oo ka tabaroone qofkaan tirinsa maalkiisu waa inuu tasoobaaye maradiisa kaan tolan dhaqsay uga tifmaysaaye ka tashiiran waayana ma dhalan si u taajiro soomaalidu waxay kaloo ku mahmaahdaa hasha labada geel jecel dhexdoodaa bahal ku cuna waxaa lagu mahmaahaa keli ama koox kolba ciddii aan go'aan adag lahayne 2 dhinac oo xinifi dhex taal waaba dhinac iska raacda kuna raas noqota cidda sidaas u dhaqanta ayay mahmaahda u dardaar warinaysaa waxayna dhoodaan ku soo dhacday mar uu u dan lahaa niman uu barbarayn iyo talaxumo ku malaynayay malahaygana uu jidhku u danqanayay hasha dhaqankaas leh intuu ku maseeyey ayuu nimankii ugu duur xulay sarsarkiiyo hashii 2 geel soof ku wada raacday ee bahalku seeraha ku dilay kama sokaysaan waxaa sidoo kale iyaduna jirta mahmaah saddexley ah oo ay soomaalidu tiraahdo 3 waxyaalood rabbi waa karaa mase yeelo dhisan maayee allow dhal isii xoogsan maayee allow xoola isii iyo camal falan maayee allow hay cadaabi isla gabaygiisii xarafka siinka ah ku tirsanaa ayuu dhoodaan mahmaahdaasna u adeegsaday isaga oo nimankii uu canaananayay markaas quuska jooga waxa u muuqatay
inay ka soo reeyaani inay riyo uun tahay afarna looga dhigi karo saddexda arrimood ee uu eebba karo hase ahaatee aanu weligii yeelin sidaa darteedna aan mar laba dhicin oo iyaga oo rumoobay aan waana loo soo joogin markaas buu yidhi saddexdii la yidhi eebbahay suuro gelin maayo sancadiinna saaweyn kartaa laga saliiliyoon cilmiga barbaarinta carruurta inkastoo aanay magacaas u aqoon haddana soomaalidii hore wax weyn baa uga bilownaa in badan oo ku saabsan hababka korinta dhallaanka iyo kobcinta garaadkooda ayaa laga helayaa suugaanta qaybaheeda kala duwan gaar ahaan mahmaahda iyo sheekooyinka hiddaha ee daa'iba da'da ka dambaysa ay dhaxalsiin jirtay taana waxaa tusaale wacan u noqon karta mahmaahda ah awrba awrka ka horeeya saanqaadkiisuu leeyahay oo macnaheeda dhowi uu yahay haddii laba rati ama ka badan la isku xidhiiriyo wuxuu mid waliba yeeshaa saanqaadka midka ka horeeya oo kale haddii uu dheereeyo wuu dheerayn haddii uu gaabiyana wuu gaabin dulucda shishe ee mahmaahduse intaas way ka baaxad weyn tahay waxayna baraysaa barbaarinta carruurta cashar ku saabsan oo ah inay had iyo jeer u badan tahay kolba curadka qoyska u soo hormara in wiilasha kale ay ku daydaan waaga dambena ayba ku dabeecad noqdaan badanaa waalidka soomaaliyeed ayay mahmaahdaasi ku soo dhacdaa mar walba oo ay arkaan qaar carruurtooda yaryar ka mid ah oo tabihii guraacnaa ee kuwa ka waaweyn ay ku arki jireen iyaguna ku dhaqmaaya haddaba cabdulaahi dhoodaan oo mahmaahdaas gabayadiisa midkood u soo daliishadayna waa kii lahaa margi baraqa awrkee hoggaan lagu makaabeeyey ka xiriirka la ysugu maray ee daba mushaaxaya tallaabadiiyo miidaanka socod way ismatelayaane dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo Mm-hmm.